ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. حفصة ما أذكر ويفرح من عيب والنبي حاسسنا وحكشنا لكن إذا قروح نسيبكم ملهين قف آدو قابلنا وإيه قروح عطلنا ملهين سعودة بنت زمعة وحيد خف آد بورا هيرو كيدوين وحاصل أخف مدوي habaarqaba hooyadan caayay kishka oo aan uga baranay caabaynta diidmada iyo ku jeesjeeska diinta iyo madhabka ahlus sunnaha ayaa in badan oo saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam caayay ama ceebeeyay wuxuu la sii dheeraystay inuu aflagaado bareer ah kula kacay xaasaskii rasuulka suuban sallallahu alayhi wasallam kuwaas oo Allah subhanahu wa ta'ala quraanka kariimka ah xaqooda iyo waxa inaga mudan yihiin quraanka ku tilmaamay الله وحكيري سورة الأحزاب آية اللحاد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم نبيغا مؤمنين تمدنان تودا كواد اسكاله حاسسكي سنة وهو يوينكي مؤمنين ساس أوغيت بالمرك هوري إلى دقيسو وحو كيري أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنها حفصة ما أذكر ويفرح من عيب والنبي حاسسنا وحكشنا لكن إذا قروح نسيبكم ملهين قف آدو قابلنا وإيه قروح عطلنا ملهين عمر بركو ود ذلك قبل يسوحوا بني أبو بكر خير يا أبو بكر قبل ويصاب بلنتها والرجز صلاة الليل كذا نوي بلنتها قرآن كان وآخر ستة قوسه أبو بكر هو أرك ما يوري وكذا وكديري وحو بني عثمان بن عفان خير قبل يذب قوسه عثمان هو كديري haddaba sideedaba waxaad ogaataa in ummuna xafsa radiyallahu anha ay garoob ama carmal noqotay iyadoo 20 iyo qadar jirta marka xiga ma jirto meel lagu tilmaamay quruxdii ama foolxumooyinka haweenkii rasuulka suuban sallallahu alayhi wasallam dunidaana kuma noola ruuxooyadii faalaxun ka qori lahaa waxaana ka sii xaqnimo badan kana qiimo badan hooyooyinkii mu'miniinta ridwaanullaahi calayhin haddaba qisadan uu daliishaday in ummuna xafsa radiyallahu عنها فالحمو لوغا كلا عراري waxay ku soo aroortay Bukhari ayaan daradooda waxay tahay inuusan dhamaasho tirin taas oo ujeedkiisu yahay si uusan been abuurkiisa uga fasho waana kan kitaabkii Bukhariga waxayna ku bilaabanaysaa qisadii geeridii ninkii hore ee ummuna Xafsa iyo kadib guurkeedii suubanaha sallallahu alayhi wasallam kitaabka hortiina ka muuqda waa sahih al-Bukhari waxa uu qayb ka gooyay ee uu akhrinayay qisada uu ku soo aroorayna sidan ayay ahayd kitaabka aad طبعاً نوعي تهيبة واحد بارتا حديثك وياهي نمبر كيسو 5122 وكتاب النكاح بابك عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير حديثك مركي أسوء أخريي أو قصدي صوضي سيدان أيوب كسو قبي لكن إلا علامات وحي تهي حديثك إنو قيب كتغي تعاص أو كدغيسو قصدي با إن أي فول حماتو أو دنت أوليهي حديثك وحاويا سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تعيمت حفصة بنت عمر من خنيس ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر قلت نعم قال أبو
أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها حديثك انت وكجوي وانت انضم وانا انت حديثك قرحينيسو او ييليسو معناها ان رسولك صلى الله عليه وسلم سرتيسا اي قرينيان صحابته wuxuu leeyahay Umar radiyallahu anhu waxaan aad uga xumaaday oo qalbigaygu uu dareemay Abu Bakar si ka badan sida Uthman u dareemay habeeno ayaan nagaaday buu yiri kadibna rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa soo doonay kadibna waan guuriyay kadib Abu Bakar radiyallahu anhu baa ila kulmay markaasuu wuxuu ugu yiri waxa laga yaabaa in aad iga xumaatay goortii aad ii soo bandhigtay Xafsa radiyallahu anha kadibna aanan wax war ah ugu soo celin Umar baa wuxuu yiri waxaan iri nacam kadib Abu Bakar baa wuxuu yiri arintaas iima diideyn inaan ku soo warceliyo si aan kuugu soo jawaabo bandhigaagii laakiinse waxaan ogaa buu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam in uu xusayay oo uu Xafso hadal hayay mana ihibuu yiri mid fashilayo ama faafinayo sirti rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadduu ka tagi lahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam waan ka aqbali lahaa hadaba xadiidka meesha uu ka gooyay oo uu ka jaray baa intaan ah waxaan hadalku ugu muhiimsan oo ah walaw tarakaha rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam qaabiltuha haka intaan ku dari lahaa oo intan uu raacin lahaa xadiidka kan ama uu intanba ka jareen aan haddar ka hadlayno warku uu quruxsanaan lahaa intanna uu daliishaday intanna uu ka reebay ayay dhibaatada dhan ka timi halkaasi waxaa ka soo baxay khiyaano aflagaado iyo been abuur Sauda bint Zam'a bal markaana kaalayo ila dhageyso wuxuu ka leeyahay ummuna Sauda bint Zam'a waxa qabiil asxaabta kamid ah oo jiray Sakran waxay soo la hijroodeen Xabasha Ethiopia sanadkii shanaad ee Islaamiga markay soo laabteen odageeda uu ka geeriyooday familkeeda mushrikiin weeyaan lix caruur ay haysata konton iyo shan jir weeyaan nabiga way ka daaweyntahay lix caruurna way haysataa waxa uu sidoo waxay khaf aad buuran hilibkeeda weyn waxa uu sidoo khaf madow yahay khadiija markay geeriyootay kadibna waxa loo soo bandhigay saan casharka lagu sheekay laba dumar gabar oo saaxiibkiisa soo dhalay khadi Aisha ahayd iyo islaam oo lixda ka sii gaartay oo lix caruur leh oo ka geeriyooday Sakran ibn Amr oo ah Sauda bint Zam'a oo uuna yaqiinay saxaabiyad ahayd qaabkeedana waa idin sheegay khaf aad u buuran ahayd midabkeedana madow ah qurux aan nasiib ku lahayn usii dheereed inay af adkeyd badan ama arkiin markay sheekeynayaan dum weyn ama af soo geliyaan sababtoo ah si dhex galaan siirada nabigeena يعني waxay leeyihiin مثلا markii Madiina la yimid waxay ka baqday nabiga inuu naco marka waxay tiraan habeenkayga waxaan siiyay Aisha maadaama ay tahay qaf weyn oo ma aragtay wax sida ma ahayn arinta laakiin Sauda halka ay lahayd marka waxay ahayd carabkeeda aad ugu kulaa nabiga kaleey salaam haddaba aan yara dul joogsanay taariikhda ummuna Sauda bint Zam'a radiyallahu anha hooyadan Sauda radiyallahu anha markuu doonay rasuulka suuban sallallahu alayhi wasallam bal u fiirso siday ugu turaysay oo ay waliba ugu naxariisanaysay kanuna waa kitaabka al-bidaaya wa nihaaya oo ibn kathir iska leeyahay wuxuu kaga hadlay mujallada saddexaad page-ka ama bogga 378 wuxuu soo raray markaa kadib faslun bitazwiijihi sallallahu alayhi wasallam ba'da khadiijata bi'aisha wa Sauda kadibna wuxuu soo raray xadiis uu imaam Ahmed iska leeyahay musnadkiisa ku soo saaray uu soo waday kadibna wuxuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam baa wuxuu ku yiri Sauda maxaa ii ka diiday kadibna waxay tiri rasuulka ilaahay iima ka diidayo aniga in aan noqoto qofka aan adduunka ilaahay ugu jeclahay laakiin waxaan ka karaamaynayaa in aad soo dhex gasho caruurtan oo aad kadibna madaxaada ay ku qayliyaan habeen iyo galab halkaas waxaan ka arkaynaa inay uga turayso Sauda radiyallahu anha inay uga turayso rasuulka sallallahu alayhi wasallam qaylada caruurteeda shanta ama lixda aha kanuna waa kitaabka al-bidaaya wa nihaaya oo asaguna noo soo gurinayo sidii ay ugu turi jirtay rasuulka sallallahu alayhi wasallam Sauda bint Zam'a halkana waa usdul ghaaba في معرفة الصحابة أو الإسكالي هي ابن عثير وحنا كسرري بقى كن يشنبقل صدن يسديد وحويري سودة القرشية مقعبة وحوقان دقي قبيل كذي رياض قريش كدبنا وحويري رسولك صلى الله عليه وسلم بعصادوني وحين هيد من عرور له وحين كتير رسولك إلهي وحان لبسانيا
in ay kugu dul cayaaraan ay kugu dul boodboodaan caruurtayda madaxaada dushiisa kadibna wuxuu soo qaatay xadiidkii axmed oo aan horey ugu soo aragnay albidaaya wanihaaya aakhirkiina markay da' noqotay waxay qalbigiisa suubanaha ku farax gelisay inuu xor u ahaado la joogista umuna caaisha radia allahu canhuma si fiican u dhegayso daliilahan soo socda kan waa kitaabka siyarul aclaam النبلاء مجلد كيسة لبعض صفحة 265 كان وسير أعلام النبلاء مجلد اللبات 265 سودة أم المؤمنين بنت زمعة ابن قيس القرشية العامرية وحوي صفحة كسي حكتة وهي التي وهبت يومها لعائشة وفي رسالة عن مركة عن قوبة القليل رعاية لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا دوريس رسولك صلى الله عليه وسلم قلبي وكانت قد فركت رضي الله عنها حل قاسنا ويدأ ويناتي وقف وين أي أهيد sidoo kale Bukhari isla amaantaas wuxuu ku soo arooriyay kitaabka hibada iyo fadligeeda safxada ama bogga 629 xadiidka uu nambarkiisu yahay 2593 kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam idha arada as-safara aqra'a bayna nisaa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu wa kana yaqsimu li kulli imra'atin minhunna yawmaha wa laylataha ghayra anna بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج رسول صلى الله عليه وسلم كذب سير راعي البخاري رحمه الله تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنتاس أيضا أكرر لقلنيسو رسول كصوبا صلى الله عليه وسلم فماذا بعد الحق إلا الضلال مسلم وحو كسو أروريي أمنا عائشة رضي الله عنها إني سودة أوكالي نقول لحيدا كتابك الرضاعة صفحة 586 حديث رقم كيسو يهي كن يأفر بقول لحدا يصدح عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة sidoo kale Abu Daawudka kanuna waa kitaabka Abu Daawudka wuxuu ku soo saaray kitaabka nikaaxa baabka ar-rajulu yashtaritu laha daraha safxada 243 xadiidka raqamkiisu yahay 2135 waa uu soo waday markaa kadib xadiidka Aisha laga wariyay waxayna tiri ya ibna ukhti kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'd fil qismi min mukthihi indana wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alayna jami'an فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت ماشي عن أفرقسك قليه ويه قالت وحيتري سودة مركز كدب وحيتري بنت زمعة حين أسنت قرت أي ويناتي وفرقت أين كعبسة أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي إنه فرا رسولك إلهي يومي لعائشة وحيتري maalinteeda Aisha ku wareejiyay habeenkeygii rasuulka Ilaahay waxa faaruq maalinteedii habeenkeygii waxaan ku wareejiyay Aisha xadiidka ugu dhow ee qof dhihi karo rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa weeye way ka cabsatay in uu talaaqo xadiidkan weeye faqabila dalika rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam minha qaalat rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka aqbalay bay tiri qaalad waxay tiri naqulu fi dalika anzala Allahu ilaahina ta'ala wax ku soo dejiyay arintaas iyo fi ashbaahiha iyada wixii la mid ah uraahu qaala wa in imra'atun khaafat min ba'liha نشوزا أو إعراضا إلى آخر الآية هل كاس وحا كعدادي إني سودة بنت زمعة رضي الله عنها راليا نمو كعام بحدي يا إني قلبك رسولك صلى الله عليه وسلم دوري جرتي اسكبدا رسولك صلى الله عليه وسلم ولو أمر ديدي وحو قرآن كدقي إن أكتيس وهذا الكيس متكالي لقصر مريو تاس أو كيني كرتو إن الله سبحانه وتعالى بريو عمل كذا قال تعالى في سورة الحجرات آية الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
markaana bal maqal sida uu cayda ugu sarbeebi doono umuna caaisha iyo usaama binu zayd kawada asxaabta way ogaayeen nabigu usaama inuu aad u jeclaa marka sanadka koowaad hijriga albaabka ayuu ku dhacay ama albaabka hoose ayuu ku dhacay madaxa ayaa ka dhaawacmay markaasuu nabigan caaisha ku yidhi caaisha amiiti aladaa canhu madaxa ka daawey kaanii qad taqadartuha waxay tiri waxaan dareemay inaan dhibsanayo nabigu iga dareemay wiilkaa madow dhaawac dhiig ka socda inaan aniga dhibsanayo nabigan calayhi salaam isagaa soo istaagay wuxuu ka dhuuqay dhiigga afkiisa ku dhuuqay khayru khalqillah nabigeena kaas weeya nabiga isagaa ka dhuuqay dhiiggii wuu tufay wuu u masaxay markaasuu yidhi usaama maanta gabar ahaan lahaa oo qurxin lahaa waan ka shaqayn lahaa dhar fiican oo labisi lahaa waa layga soo doonan lahaa oo guurin lahaa marka gabar yar wiil la da-aad ah 11 jir isla ah inuu yiraahdo wiilkan ka masax daaweyn زعلان أو لوية كانت تويس وحسنا كعياريس صورة قلمة تهي qisadan ma sugna oo waatan online-ka lagu taxliiliyay waxaana ku jira nin daciif ah oo la yiraahdo Shariik bin Abdullah al-Qadi kaasoo ah mid xifdi xumaa iskuna qasmay hadiibase muran ahaan looga soo qaado inay sugnayd ma uga jeedaa meel lagu leeyahay hooyadan Aisha radiyallahu anha wiilka madow ayay ka yaqiiqsootay soo kuma cadaan inuu ajande iyo ujeedo qarsoon wato sawse wax la yaaba maaha inuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam baan amaanaya yiraahdo reerihiisi iyo haweenkiisi aflagaadeeyay Hafsa qaf aad u gaaban way qorox dhanna ma lahayn Sauda bint Zam'a waxay qaf aad buuran hilibkeeda weyn waxa sida qaf madow qaybahan fiidiyowyadiisa ah waxaan ka soo gooyay cajaladihiisa YouTube-ka ku jira hadii aad doonaysana waxaad ku heli kartaa markaad geliso waxa uu ugu yeero tafsiirka 10:34 daqiiqada 13 ilaa 15 iyo tan kale oo ah 10:35 daqiiqadiisa 36 ilaa 50 wuxuu leeyahay waxaan sharaf xumada u diidayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaas isweydiin leh ma jira nin lagu amaani karaa xaaskiisa in la caayo haddaba kishka wuxuu wadaa waa hadmu diin bismi diinka magaca diinta ku dumi dheemanka lagu jaraa iyo la fagari ayaga la isku jabiyaa maxay isdhaamaan asaga iyo ninka gaalkacyo ka soo baxay kaas oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku aflagaadeeyay masawir meel soo dhigay ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين